kacdoonka kan wuxuu la mid yahay kacdoonnadii dalka xornimada loogu raadinayo mid lamida weeye dagaalkan dagaal qabiil ma aha dagaal qaran weeye ugus baa la yidhaah ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed waayo waxaan gumaad ahayn kama aanay shaqaynaynin sidaynu la wada soconno waxaa waddanka qeybo badan oo ka mid a ka soconaya kacdoon isa soo taraya oo lagu diidan yahay maafiyada dhiigyacabka ah ee aan arxanka lahayn ee ugus amaba se shabaab iyo daacish dadkaasoo runtii muddo aysan astaahilin intaas in lagu weerarsanaado loo xayirnaa oo loo dhibaataysnaa oo dhibaatooyin fara badan oo naf iyo maal iyo moralba isugu jira waddanka ka geystay maadaama uu halganku si xoog badan u socdo deegaano fara badan oo ay haysteen oo dadka ay ku dhibaateyn jireen laga qabsaday kuwo kale hadda uu ka socdo abaabul iyo kacdoon aad iyo aad u xoogan horta awalan wa qabla kulli shay waxaan rabnaa inaan sheegno halgankaas iyo kacdoonkaas inuu yahay mid xaq ah oo hadiiba uu jiro jihaadun fi sabiilillaahi mid ka mid a jihaadyada bannaan ee la idmay ee sharcigu ogol yahay inuu yahay baan rabnaa inaan ummaddu u caddayno meeshaasna uu ku jiro ajir in la doonto taariikh in la hagaajiyo in dhibkii dhacay looga soo kabsado oo marxalad cusub loo gudbo haddii aan la idmo dadka marka ku dhaqan deegaanada shabaabku ay dhibaatada ku hayeen ee hadda dadku ay usoo jeedsadeen xil gaar ah oo kasii sokeeya xilka ka saaran dadka aanan deegaanka u dhoweyn ayaa saaran oo ah halgankaas iyo kacdoonkaas inay taageeraan ka dhabeeyaan xaqiijiyaan sidii dadkaasu ay u heli lahaayeen xornimo ay ka qaataan dadkaas adduunka ku ciriiriyey diinkii ku dhibay dalka ay deganaayeen ku dhibay inay waxa weeye isha ka qaataan gaar ahaan dadkii dhibaatada tooska ay u geysteen dadkii ay dhibeen ay xoolahooda boobeen dhaawaceen ka fakaday ehelkooda ay dileen qaraabadooda ay dileen xil gaar aha saaran marakan waa mar aad xaq aad u leedihiin inaad yac iska tiraahdaan iskana qabataan dadkaasna aad si kama dambaysa soomaaliyeed uga xoreysaan haddaba waxaa muhiim ah dagaalka noocan hadda jira faham sax in laga qaato saddex qodob baan doonaya marka inaan ka hadlo qodobka koowaad waxa weeye shabaab iyo waxa ay ka kooban yihiin isugu jiraan qodobka labaad waxa uu yahay qaababka loo xoojin karo kacdoonka haatan jira qodobka saddexaad waxa uu yahay waxa laga filan kara shabaab iyo waxa laga doonayo shacabka kacdoonka ku jira iyo ciidamada xoogga dalka ama ciidamada qalabka sida ee waxa weeye saacidaya ee u ah lafdhabarta u ah halganka kan midda koowaad dadka shabaabka saddex qaybood baa loo qaybin karaa iyadoo qaybo kaloo fara badan loo kala ablaableyn karo qayb waxa weeye dad caamo iska ah oo gurdan raac ah oo isugu jira ciyaal iyo da'yar iyo haween iyo dad iska taabacsan dhulka ay haystaanna ay ka qafaasheen ama ay ka qabsadeen amaba se siyaabo kale wax loo tusay oo mooday inay yihiin fursad laga faa'iideysan karayo qaybtaa waa qayb weyn qaybta labaad waxa ay tahay dad dhaqaala doon ah ama maamul iyo saldana doon ah ama argoosi usoo galay shabaabka oo doonaya inay xisaabaad hore iyo dhibaatooyin ay tabanayeen ay waxa weeye tabashadii ay qabeen ay kaga cadgoostaan dadkaas oo la dhihi karo waa qeybta madaxdooda amiiradooda iyo ciidamadooda qeybo ka mid ah qeybta saddexaad waa qeybta ajnabiga ee shisheeyaha weeye qeybta shisheeyaha ah waa dad adduunka dembi ka soo galay oo gaboodfalle soo geystay oo dhibaatooyin ka geystay meelihii ay ka yimaadeen aanu ku laaban karin sidaa darteedna soomaaliya mooday meel ay gabaad ka dhigan karaan si ay ugu sii noolaadaanna doonaya xaaladan liidata inay soomaaliya ku dhaxayaan oo ah dadka iyagu marjica u ah ama geed fadhiga u ah oo laga yaabo haddii doono laba kaarlayaal ama saddex kaarlayaal inay yihiin ayagoo cadow kale u shaqaynaya inay doonayaan soomaaliyana inay dhibaatay u geystaan ayagoo dembiye soo gala inay halka kan dembigii kasii wadaan ay sii qasnaato si ay iyagu ugu sii cimri dheeraystaan saddexdaasaa loo qaybin karaa bishakli caam markii la isu wada geeyaan waxay isugu wada dhammaanayaan dad khalkhal ku ah amniga waddanka kan aanan dhibaato kale aanan u baahnayn su-aashu marka waxay tahay iyagoo intaa ka kooban ayaa waxaa dhacay kacdoonkan hadda ayaa samaysmay barakaysan oo mujtamaca soomaaliyeed ay isaga kicinayaan shabaab maxaa marka nala gudboon sidee baa loo xoojin karaa kacdoonka shacabka see loo garab istaagi karaa maxaa la qaban karaa qodobo dhowra baan tirinaya qodobkood waxa uu yahay in garab istaag muuqda oo cudud iyo cood iyo ciidanba ah
loo muujiyo kacdoonka jira dowlad iyo shacab si aan kala har aanan lahayn, si aan qabyaaladaysanayn, si aanan gobolaysanayn. maxaa yeelay shabaab waxay ku baaqeen cadaawad iyo col iyo dagaal ka dhan ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed. gaalnimo bay ku xukumeen, dhiigooday banaysteen, dhulkoodii bay qaateen, hantidoodii bay boobeen, sharaftoodii bay banaysteen. sidaa darteed cidna gacal uma aanay ahayn, maadaama aysan cidna gacal u ahayn oo dagaalkooda uu ahaa dagaal ku wajahan qarannimada Soomaaliya. inta qaranka Soomaaliya uu mideeyo waxaa saaran inay arrintaa iyada ah ayadoon la siyaasadaynin, la qabyaaladaynin, la gobolaynin, halgankaa la isgarab taago, guushi ka timaadana guul Soomaaliyeed loo ictibaariyo, qof walbana uu sheegan karo kaalina uu ku leeyahay. qodobka labaad waa maxay? ciidanka marba ku jira dagaalka ama hadba meesha uu marayo in la taakuleeyo oo lala garab istaago saag joogto ah. furimaha ay ciidanku joogaan taakule in la geeyo, ama ciidanka qalabka sida ha noqdaan, ama macawisley ha noqdaan, ama ciidanka deegaanka hadba markaa la marahayo ha noqdaan, in Soomaalidu ay gacan walaalnimo u fidiso oo la taakuleeyo. waayo waxa lagu taakuleynaya xaq weeye, waxyaabo aan macno lahayn baa dadku intay wax ku taakuleeyaan dambi u ka dhalan jiray. qodobka saddexaad waa maxay? in la xoojiyo weerarada lagu ciribtirayo oo lagu soo afjarayo nimanka iyaga waxayna noqonaysaa in jabhadaha kacay iyo kacdoonada jira ay waxa weeye wax weyn soo kordhinayaan. qodobka xiga waxa uu yahay shacabka iyo ciidanka inay isku xirmaan oo ay noqdaan dad wada socda oo ka wada midaysan nimankan soo afjaridooda. waxaa iyana sii xigta meelaha ay u firxadaan in loo fariisto oo aysan dhicin intay deegaan ka soo cararaan oo ay deegaan kale oo nabada yimaadaan inay bulshada dhex galaan ay ku dhex dhuntaan, hubkiina ay qarsadaan. waxa ugu daran oo shabaab ay sitaan waa laba wax: waa ideolojiyada ay ka duulayaan oo waxa la yiraahdo islaam nacaybka ah. midda labaadna waa hubka ay sitaan ay wax ku dhibaateynayaan. ideolojiyadeed inaan wax laga qaban karin si degdeg ah baa laga yaabaa oo ay u baahan yihiin in la xareeyo oo dhaqan celin loo sameeyo. laakiin hubka inay bulshada intay la dhex galaan ay xasaystaan oo maalin maalmaha kamid intay la soo baxaan ay dhibaato ku geystaan, inta xadar weyn laga qabo way. sidaa darteed deegaanada ay u qaxayaan ama u kala firxanayaan waa inay qabaan digtooni ku saabsan iyo heegan in shabaab uusan dhexdooda kusoo dhuumanin oo aysan shabaab markale fursad aysan helin. qodobka afraad waxa uu yahay dadweynuhu inay bilaabaan si isxilqaan ah raashin bixinta, lacag bixinta, xoolo nool oo la geeyo oo loo geeyo ciidamada yacni difaacaya amnigooda oo naftooda u horeeya oo dhiigooda bixinaya ee goobaha ay ka dagaalamayaan loo geeyo. qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay ciidamada ATMIS ee garabka siiya dowladda federaalka Soomaaliya in ay kaalintooda iyagana xoojiyaan oo dowladdu ay amar ku siiso goob walba oo looga baahdo inay tallaabo ka qaadaan. goob walba oo looga baahdo shaqada kaga aadan inay ka qabtaan ayaa iyana laga maarmaan ah. markii meel laga qabsado saas si lamid ah inaan meeshii la banaynin oo baylaha aysan noqonin ciidan lagu reebo ciidanka deegaanka meesha iyada ah ay gacanta ku dhigaan, dowladdu ay qaramayso, laga warqabo, waayo dowladda waxa iskale dadka ayaa iskale. qodobka u dambeeya waxa weeye waan ku dhamaynayna haddii alla idmo. xilligan shabaab dhibaatada culus ay soo gaadhay, deegaano fara badan laga qabsaday, kuwo kale hadda uu ka socday abaabulka maxaa laga filan karaa? waana arrimaha muhiimka ah oo u baahan in digtooni laga qabo. qodobka koowaad waxa uu yahay waxaa laga fili karaa inay dilaan ama ay gaadmo ku dhibaateeyaan dadka haldoorka u ah deegaanada laga maaragtay sifeeyey ka soo jeeda, nabadoonadooda, ganacsatadooda, siyaasiyiintooda, waxa weeye aqoon-yahankooda, dadka inay dhibaateeyaan. waayo shabaab dadkan waxba uma aha, waxbana isuma ay aha, waxaana ay doonayeen weligood kana shaqaynayeen bulshada inay dareensiiyaan xanuunka ugu badan. marka meesha bulshada ay ka xanuunsan karaan inay qabtaan bay rabaan. marka dadka noocaas ah inay dhibaateeyaan baa dhici karta oo beelaha ay soo dirireen ama deegaanada ay soo dirireen dad ka soo jeeda inay magaalada Muqdisho ku ugaarsadaan oo mid ay waxa weeye u dhibaateeyaan. arrinta marka taxadar buuxa in laga qabo waa laga maarmaan. qodobka labaad waxa uu yahay oo laga fili karo shabaab inay la yimaadaan inay abuuraan isku dhac beeleed oo qabaa'ilka isku diraan si iyagu ay jaanis u helaan oo looga mashquulo oo qabaa'ilkii ay khilaaf ama mugdi u soo kala dhaxgeliyaan oo haddii la doono kuwa iyaga kamid intay soo dhaxgeliyaan kacdoonka ay meesha iyada fidna ka abuuraan. taa iyadana taxadar in laga qabo ayaa laga maarmaan. waayo qolo khayaano iyo been iyo dhagar iyo makri ka samaysan weeye. qodobka saddexaad oo laga fili kara waa maxay? in ay qaraxyo waaweyn ka sameeyaan magaalada Muqdisho
iyo magaalooyinka ay suuragal ka tahay inay ku dhuntaan iyagoo ay ka tahay argosi iyadoo ay ka tahay in ay waxa weeye muujiyaan wali waa jirnaa iyadoo ay ka tahay in maxaa la yiraahdaa ay sheeg waxay kharibi karaan ay waxa la yiraahdo si kharibaan oo marka ay geystaan qarax lamida qarax soobo oo kale ay geystaan qaraxyo kale oo maxaan ku dhaho hotel ay ku bartilmaameedsadaan sadarteed amniga goobaha dadku isugu imaanayaan iyo guud ahaan mujtamaca gaar ahaan magaalada Muqdisho in sar loo qaado way waliba kacdoonku waa inuu ka bilowdaa magaalada Muqdisho maadaama magaalo calool ah oo wax badan qari karta ay tahay si aan loogu soo dhaxdhoomanin oo guryaha loo soo xaluulanin ciddii garab siisa ama qarisana dadweynuhu ay talaabo uga qaadaan ciidamada amniga iyo laamaha amaan ku tacalluqana ay la wadaagaan qodobka faraad laga filan kara waxa weeye inay xoog saaraan waxa loo yaqaano waxa la yiraahdo amaliyatul farr wal kar waxa la yiraahdo oo ku dhufo ka dhaqaaq dagaal ay sameeyaan oo intay koox yar isu abaabulaan ay hadba meel ay arbush ka sameeyaan taa iyadana waa laga filan karaa jidadka inay galaan oo shufta ay noqdaan dadka musaafiriinta inay dhibaateeyaan marka intaas oo dhanna waxa lagu waajihi karo waa midda koowaad horta Ilaahay oo la tala saarto subhanahu wa ta'ala midda labaadna waa midnimo midda saddexaadna waxa weeyaan in dagaalka kan aan laga joojinin tan iyo inta ay ka waayayaan inay isu soo gurmadaan ama waxa ay qorsheystaan ama dhibaato inta ka dambaysa ay geystaan Puntland iyo maamulada kale oo dhan waxa saaran wixii soo firxada inay iska qabtaan oo aysan dhicin inay noqoto meel inta loo soo baxsado aamin lagu helo lambarkow maamulada kalena waa la mid weeye oo hadda mesela markay hiiraan ka yaacaan waxay tagayaan shabeellada dhexe ama waxay aadayaan bakool bay dhinac kale aadayaan baday ku cararayaan waxa laga yaabaa inay ka dhacaan xaggo iyo waxa la yiraahdo shabeellada hoose inay ka dhacaan ba laga yaabaa oo ay xagga ay ka sii galaan jilib iyo deegaanadoodii marka maamul walba ayaa waxa saaran inuu xil iska saaro oo waliba maamuladu waxyaabaha caadada u ahayd ba waxa kamid ahaa khilaaf siyaasadeed iyo muran iyo ismaandhaaf bal in si kale loo rogo ayadoo la wada shaqeynayo wax ma la qaban karaa baal cusub ma la furan karaa oo cadowgan in la wada saaro Soomaalinimo dib loogu soo laabto dalkii oo ammaan ah oo istiqraar ah loo wada tashado uusan ninka kale uusan ku riixaynin kuna xumeynaynin kuna xasdaynin ma looga faa'iideysan karaa fursadda tan wixina soo maray intaan isaga dhaqno ma noqon kartaa fursad aynu mar labaad intaan isku aamino aynu danteena ku raacano runtii waxaan ka arkaa fursad aad u weyn arrintan hadda bilaabatay ee socota oo laga mira dhalin karo loona baahan yahay culimada aqoon-yahanka siyaasiyiinta ganacsatada inta la isugu yimaado dhinacyada la iska wada taago wixii aynu la'ayn oo hakadka ugu jiray amni darradii jirtay in waxa weeye isheeg maanta la qorsheysto dagaalkana si midaysan loo galo waxa weeye aanana aysan dhicin in qolo kale ku hadlayso ama dagaalkan dagaal qabiil ma ah dagaal qaran weeye sadarteed waxa looga baahan yahay iskaashi noocaas Puntland waxa si gaar ah u sii saaran deegaanada ay ku jiraan oo ay ku dhuumaaleystaan sida buuraha galgalo oo kale dhanka qandale iyo bari oo kale marka la fiiriyo in loogu tago iyagana oo dadka shacabka ee meesha degan iyo dawladda wada socdo inta ay galaan la soo afjaro uu noqdo halgankan iyo kacdoonkan socda mid Soomaali oo dhan ay wada dhanta deegaanada kale ay ka bilowdeen in waxa weeye looga kacana waan u mahad celinayna ciidamada macawisleyda iyo ciidamada qalabka sida ee shaqeynayana runtii wax wanaagsan oo weyn oo taariikhdu ay xusi doonto ayay ku kaceen walibana waxa la dhihi karaa kacdoonka kan wuxuu la mid yahay kacdoonadii dalka xurnimada loogu raadinayo mid la mid weeye warbaahinta door weyn baa saaran doorka saarana waxay tahay in nimankan aan la boonbooninin warkooda aan la faafinin warka kacdoonka la faafiyo beenta iyo cabsi gelinta ay mujtamaca doonayaan inay ku dhex faafto aan garab iyo gacan loo noqonin erayada istilaaxaadka ay jecel yihiin amiirka shabaab wallahu almusta'an may ugus baa la yiraahdaa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed waayo waxaan gumaad ahayn kama aanay shaqeynaynin ma garanaysaa qofku magac waa iska sheegan karaa quruxsan laakiin amalkiisa ayaa marxaati marka warbaahintu door weyn bay ku leedahay in social media lagu faafiyo fariimaha kacdoonka shacabka in ummadda la tuso inay wax qabsan karto wax iska difaaci karto wax iska dhicin karto manaaca ay leedahay marka warbaahintu waxa saaran xil aad iyo aad u weyn oo dadka kale aysan qabin kaalintoodana way jirtay wayna jiri jirtay umadsa aysan dharmayn maanta waxa laga rabaa inay hiil bixiyaan Soomaalinimo qarannimo oo loogu hiirinayo nabadgelyada iyo masiirka Soomaaliya ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala dalkeena inuu nooga dhigo dal amni iyo istiqraar ah dawladnimadeennana noo xoojiyo dadkeedana qalbigooda burcad isu mariyo dhibaatada shabaabna uu ka dulqaado iyo daacish mid lamida iyo mid u dhow iyo waxa la qabiil ana
ilahay uusan ku salladin mar dambe. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.